السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عمر. السلام بعد واحد مقال كان هو يا دمان ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan fanaaniinta Soomaaliyeed waxa ka bilowday fanka Canada musuqmaasuq aad u foolxun oo aan la fiirsan karin lagana aamusi karin. muuqaalkan waxaan si dooni ugu duubayaa oo ku socdaa cawaale aadan waa nin dhalinyaro oo fanaana laakiin waxyaabo aan loo adkaysan karin waxa weeye fanka Soomaaliyeed ee xeerka fankana aan ku jirin uu dhaqan u lahaa awal haddana dhaqan u leeyahay birina dhaqan u lahaan doonaa. waxaa jirta anigu aan halkan horta maanta u soo fariistay hees aan anigu qaaday heestaas cawaale intuu qaaday oo ayadii oo dhan nooc kale ka dhigay buu siiyay nin dhalinyaro ugama xumin ninka uu siiyey laakiin waxaan ka xumaayay dhaqan xumada uu asagu kula dhaqmayo fanaaniinta gaar ahaan Canada fanaaniinta reer Canada. waxaa jirta laxan uu sameeyay Suga Cabdullaahi Boqore uu sameeyay jecelow uu asagu isku soo qoray waa heesta ku jecel aniga ku jecel waa heestaas waxaa laxankeeda iskale Suga Cabdullaahi Boqore. waxaa jirta hees uu leeyahay Khaliif Faarax Xayir ratiga lagu xiray ratiga $1,700 buu wuxuu ka siistay fanaan daahir oo ah nin dhalinyaro oo fankiisu aad u fiican yahay. heestii markuu siiyey uu ogaaday inuu fiidiyowga soo duubayo cawaale wuxuu ka soo daba duubay heestii oo YouTube ka soo geliyay. heestii cawaale wuu qaaday daahirna wuu qaaday labadoodii way ku wada jiraan waa tan maanta uu aniga u sameeyay. heestii aan anigu soo duubay wuxuu u diray dhalinyaro YouTube leh soo geliya wiilkiina heestii buu siiyay soo geliya si uu soo kaayo horkeero asaga iyo daahir waa tan heestaas daahir baa soo qaaday ayadoo cawaale qaadayna waa idin shidayaa $1,700 buu wuxuu ka siistay daahir. waxaa taa kaaga sii daran walaalkay xabad waddankan xabad isagoo marti ku ah oo Afrika ka yimid wuxuu ku soo degay cawaale aadan fanaaniintii magaalada joogtay oo dhan Canada waa uu ogolaan waayay waana uu ka qariyay. Edmonton buu show ugu qabtay anigu showgaas waan u raacay xabad tigidkayga anaa u goostay u tagay si aan u garab istaago cawaale aadan xabad showgii markuu qabtay lacagtii buu kala soo tagay wax kale oo taraska daayay Edmonton buu uga soo tagay xabad maanta Edmonton buu joogaa cawaalana lacagtii buu kala soo tagay dib dambana uma uu salaamin ugumana una noqon. markaan intaasoo dhan isku soo duuduubo waxa laaliyo wuxuu khalad dhalinyarada ka galay oo dhan aan isku soo dardaro waxaan fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan kula dardaarmayaa fanaankii mustaqbal raba oo doonaya in uu fanaan Soomaaliyeed oo mustaqbalkiisu ifayo noqdo in uusan cawaale aadan aysan dhex marin wax la xana wax heesa iyo wax fan ku saabsan. waxaa jirta hadda hees uu soo wado cawaale oo anigu leeyahay hees aan leeyahay. waxaa kaloo jirta hees ay soo wadaan Sakiyare iyo Raxmed Roos oo cawaale iyo Aamin Afriik ay hadda wada qaadi rabaan. Aamin Afriik waa gabar walaashay may oga waxa meeshan ka socda. hadal waxaan soo gunaanadayaa cawaale aadan aniga taad igu samaysay maanta kama xumi maanta anigu kama xumi laakiin midda aan ka xumahay waxay tahay maadaama aad yaantan magacaaga la maqal oo aad isleedahay magacaagu ka soo muuqdo ama dib ha u soo noqdo haddii aad sidan magac ku helaysid oo aad sidan door biday waxa weeye haddii sidan magac ku yeelo qolxumada ah anigu runta kama gabado mana baqo
haddaad khalad iga geshid anuu awoodo hadda intaan Ottawa kugu imaado inaan dharbaaxa kala daalo waa waxaan door biday inaan ummadda Soomaaliyeed horta ku ogeysiiyo dhalinyarada Toronto joogta ama Canada joogta ee fanaaniinta ma hor istaagi kartid adigu way soo baxayaan indhahaagu shan abay soo baxayaan waxaa jirta fanaaniin adiga hadda waxa way ku hoos jooga waa low budget ayagoo aniga ugu jawaabi maayo ayaga laakiin adiga wax kale kugu jawaabi maayo maadaama aad tahay saqajaanka ku dhex jira fanka waxa weeye dadka kula wareegaya burushka nacasnimada qurunka saa u marinaya waxa weeye anigu hortan ku sheegaya kaamana xishoonayo kaamana baqayo dadka aad madaxa kaga istaagi jirteen ma ahay anigu waan isbaranaynaa video baa ku xigi doona isla adiga ka hadlaya wax allaaliya wixii dhaqan xumo aad ragga ku samaysay everything raggi ka baqay xataa aniga u hadlaya uu ka mid yahay xabad uu ka mid yahay raggi aad xumaysay oo dhan oo aan kala hadlin zaak uu ka mid yahay daahir uu ka mid yahay haddii ilaahay ku roon yahay suga cabdullaahi boqorre oo laxankiisii ku jecel aniga ku jecel adigu isku soo qortay uu ka mid yahay khaliif faarax yirkii heesahaadiga kuu samaynayay waa laxamadiisa oo dhan sheegatay waxa weeye video ku xiga aniga adiga isbaranayna si fiican isku baranayna billahi tawfiiq aad baa u salaamantiin dhammaantiin nabadgelyo